Britain, Faransiiska iyo wadamo kale oo Yurub ka mid ah waxaa jiray dabeelo aad u xoogan oo qabow wata ka oo meesha ka saaray dhaqdhaqaaqyadii tareenada iyo sidoo kale socdaaladii dhinaca hawada ahaa. Dhinaca Britain haddii aynu fiirino dabeysha Eunice la yiraahdo ayaa waxa ay jiirtay dhammaan magaalooyin badan oo wadankaasi Britain ka tirsan iyada oo ay khubarada dhinaca iyo saadaasha cimilada ay ka digayaan in dabeelahani ay yihiin kuwii ugu xumaa ee muddo 3 qarni ah soo mara wadankaasi Britain. waxaana la tilmaamayaa in dabeelahaasi ay xawaaro dhan 196 kilomitir ay saacadiiba ay jarayaan marka loo eego magaalooyinka wadankaasi Britain. dabeelahaasi waxa ay sababeen in ay joogsadaan dhaqdhaqaaqyadii tareenada iyo socdaaladii dhinaca iyo hawada, waxaana la tilmaamay in la hakiyay dhammaan socdaaladii diyuuradaha ee garoonka City ee bariga wadankaasi London. sidoo kale garoonka Heathrow oo ah mid ka mid ah garoomada ugu waaweyn ee wadankaasi UK ayaa la hakiyay ayaa la yiri in duulimaadyo ay ka baxaan, waxaana boqolaal duulimaadyo iyo sidoo kale tareeno iyagu doonayay in ay baxaan ay safraan laga hakiyay wadamo dhaca Yurubta waqooyi galbeed. baraha bulshada ayaa la soo dhigayay baraf aad u xoogan iyo sidoo kale dabeelahaasi oo meelaha qaar saameyn ku yeeshay. garoonka Heathrow ee caasimadda Britain ee London ayaa waxaa la tilmaamay in ay noqotay meesha ugu badan ee dhaqdhaqaaqyadeedii la soo bandhigayay baraha bulshadana loo adeegsanayay. sidoo kale dabeelahaasi xoogan waxay saameyn ay ku yeesheen kalluumaysatada wadankaasi Britain. barta Flight Radar ee iyadu ku takhasusay dhinaca iyo cimilada ayaa waxa ay tilmaantay in tiro badan oo socdaalaha oo garoonka ka bixi lahaa la hakiyay. garoonka ayaa bartiisa Twitter-ka waxaa lagu soo qoray in sababo dhinaca iyo dabeelaha iyo cimilada oo aad u xun UK in ay go'aan ay ku gaartay ayna kala midaysan tahay wadamada Yurub qaarkii in ay joojiso dhammaan duulimaadyadii ka bixi lahaa garoonkaasi caalamiga ah ee Heathrow. waxay keentay dabeeshaasi in 8 qof ugu yaraan ay geeriyootay, waxaana sidoo kale ay sababtay in koronto la'aan 10,000 oo guryo ay iyagu ay ku haysato dhinaca magaalada London ee wadankaasi Britain. haweeney ayaa la tilmaamay inay ku geeriyootay magaalada London kadib markii gaarigii ay waday uu ku dhacay geed weyn oo dabeyshu ay soo riday. sidoo kale nin kale oo la tilmaamayo in markab uu saarnaa ayaa xarig ku soo go'ay, taa oo markii dambe keentay inuu u geeriyoodo. qof kale gaari uu watay waxaa kula dullacday geed weyn gobolka Hampshire ee koonfurta wadankaasi Britain. Holland wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in dhowr geed oo soo go'ay dabeeluhu ay soo rideen 3 qof ugu yaraan in ay ku geeriyootay. magaalada Amsterdam kooxaha gurmadka ayaa waxaa la tilmaamay in iyaga oo gurmad ku jira 2 qof in ay ka geeriyootay maadaama geedo waaweyn oo magaalada ku yaala ay kula soo dhaceen. Belgium-kana dabeelahaasi waxaa la tilmaamay in 1 qof oo ka soo jeeda wadankaasi Britain oo ku geeriyooday. barta RTA ayaa waxa ay tilmaamaysaa in qof kale uu ku geeriyooday wadanka Ireland kadib dabeelahaasi geedihii ay soo rideen oo ninkaasi ku dhacay. kooxaha khubarada ee saadaasha cimilada ayaa iyagu waxa ay ka digayaan dadka in ay banaanka ay u soo baxaan, waxaana lagu amrayaa in guryahoodii ay ku sii sugnaadaan.